maanta la soo gaarsiiyay deeq isugu jirta masaaxiif kutubta quraanka ah iyo deeqo kale dugsiga quraanka ugu weyn magaalada Boorama oo loo yaqaano xarunta Imaam Shaatibi kaasi oo uu ka yahay maamule Sheekh Xuseen Nuur Qalinle waxa soo gaarsiisay dugsigaasi quraanka masaaxiiftaasi quraanka ah gabadh iyadu Kuwait degan taasi oo markaasi ugu deeqday halkaasi waxa isagu ka hadlay nin kamida culimada magaalada Boorama ku dhaqan sidoo kale gabadhaasi ay iyaduna deeq raashina ay gaarsiisay cusbitaalka guud ee magaalada Boorama halkaasi oo uu kaga qaabilay agaasimaha cusbitaalka guud ee Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aaye barnaamijkaasi yar oo kooban sidii uu u dhacay daawasho wanaagsan minash shaytaanir rajiim يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام gabadhani soo dirtay ayaa waxay dhanayd $1,290 waxaanu kutubta siinay $450 ayaanu kutub quraana u siinay inta kale waxaanu ugu talagalnay in aanu u qaybino dadiyooga markiiska dhigta yani agoomaha iyo faqarada dugsiga inaanu u qaybino insha Allah taala arrinkaas waxaanu Ilaahay subhanahu wa taala ay uga rajaynaynaa gabadhaas in Ilaahay subhanahu wa taala miisaankeeda xasanaadka ugu kobciyo loo soo dhiibihii arrinkan loo soo wakiishay oo anigu ii wakiishay oo ah fadiilatu Sheekh Xuseen Sheekh Nuur Qalinle waxa leenahay amaanadii uu soo gaarsiiyay wax lagu barto iyo meelaha bukaanku u jiifo meelaha baadiyaha dadkii way ka yimaadeen walaalayaal baadiyihii way ka yimaadeen waxayna uga yimaadeen duruufahaas la soo dirsay awgood ayaa waxa la doonayaa dadiyoogu inay ka soo saacidaan oo maadareetay magaaladu waxay ku dhisan tahay waa miyi weeyaan miyiga hadduu waxba qabadkiisii daraado oo dadkii miyigiis kaga yimaadaan magaaladuna socon mayso waxa la doonayaa in ay dadka gobolka u dhashay gobolkan Awdal oo ah gobol aad iyo aad u nawaaxi weyn بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنتي وحساك هكذا كبدوني حسين يساعدكي فعشان كاسي وصية المقاسين دان لحية تبكيشو بريسة ستكيشو صنبرة لبا عاقدود والسبيدة يلا بدا كردون كمان دان داد كاسي أبعرنتها سوها الدير أي صور ديرتي قبلنا كويدا المحسنات هذا أنت كسر دقيقة متسمعنا إذا صوب حضي إذا تكبو كلا كرسي بدينا إيش هسوا وتقولي بان يلا نقول ما نقلنا وخيرين وأنا أجري حسنات وقصيو أنت شيخ حسين نسوق جرسينا يجنا وحلينا هاي متكلم وارد بدولي أجري حسنا الله يحسيه أنا ونا وحسمين إن وحن بلان قاضينا كليه إن loo dhigo stoorka loo kariyo dadka buka in dadka buka inta uu gaarsiin karo muddada uu hayn karo in mataqaana loo kariyo oo la siiyo waqtiyada cuntada looga dhigo dadka mataqaana buka ee waarka jiifa yaani cid kale shaqo ku lahayn intaas aan wada ballan qaadayna assalaamu calaykum xasan ciise shabakada wararka Sir News Boorama